halkan waxa fadhiya dhalinyaro qurux badan oo ka kooban dallada wadajir dallada kaaba organization iyo dhalinkaab oo runtii ah dallado dhalinyaro oo isa soo agaasimay oo ku soo biiray xisbiga kulmiye runtii waanu soo dhawaynaynaa waanu ku faraxsannahay dalladaha iyo ururada dhalinyaradu waa waxyaabaha lagaga nasto qabyaaladda iyo qoloqolada waxa weeyaan waxyaabaha aynu u baahannahay inaynu uga guurno qabiilka iyo foolxumooyinka kale ee waxa weeyaan dadka qaar ku dhaqmaan Somaliland qabiiladeedu waa 3 qabiilun waa 3 xisbi qaran innagu waxaynu nahay qabiilkeenu waa kulmiye qoladeenu waa kulmiye waxaynu ku abtirsanaa xisbiga kulmiye dhammaanteedna waxaynu wada nahay kulmiye waan idin soo dhawaynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhalinyaradan quruxda badan ee isa soo agaasintay ee dalladaha ka kooban ee xisbiga kulmiye ku soo biiray intaas way iga soo dhawayn in yar waxaan doonayaa inaan uga gudbo dhalinyaro aan ku arkay social media oo sheeganaya inay ka tirsanaayeen garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye iyo guddida fulinta ee xisbiga kulmiye gobolka Togdheer kuwaasoo sheegtay inay iscasileen oo xisbiga ay ka tirsanaayeen annagu ma damaanad qaadanay inaan xisbiga ahayn oo odhamayno xisbiga may taageersanayn laakiin waxaanu beeninaynaa inaanay mas'uuliyiin ahayn oo mas'uuliyiin xisbiga ka tirsan ahayn oo xilal aanay ka haynin laakiin waa laga yaabaa inay taageerayaasha xisbiga ka mid ahaayeen waxaanu leenahay xisbigan taagta daran ee ku wareegaalaysanaya inta yaroo dhalinyaro la yidhaahdo iscasil isagoo maaragtay xil u hayaanay jirin meeluu ummadda kala hadlayaanay jirin dhalinyaradu ummadda imika way ilbaxdo youtube-yada laga helaa qofku markuu iscasilo waa la baadhaayo waxa la yidhahdo kii maalinteebuu haseelkeebuu ka hadla bal ragga aad daawanasaana idinku le waan iscasillay youtube-yada baadhoo xisbiga halkay kaga jireen iyo kaalmahay kaga jireen idinku hela kuwaana waxaanu leenahay inaanay waxba ka jirin inay suuq samaysi iyo maaragtay taytal raadin iska tahay